daawadayaal ku soo dhawaada wararkii Warshiil TV qodobada ugu doorka roon wararka aan idin haynana waxa kamid ah kulan xasaasi oo magaalada Kismaayo ku dhaxmaray madaxweynayaashii hore ee maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe xisbiga Sheekh Shariif oo dacwad ka dhan xukuumadda Soomaaliya u gudbiyay maxkamadda sare madaxweynaha Khaatimo Professor Cali Khaliif Galeed oo ku waajahan magaalada Muqdisho madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Guuleed oo gardarro ku tilmaamay cunaqabataynta la saaray maamulka Jubbaland ciidanka Djibouti ee ka tirsan hawlgalka AMISOM oo ka cabanaya inaan la siinin mushaharooyinka daawadayaal kuwaasi waa qodobadii warkeena ugu doorka roora haatana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan wararka laga helay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in xalay uu halkaasi kulan gaar ah ku dhaxmaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo madaxweynayaashii hore ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed kulanka oo ahaa mid albaabadu u xiran yihiin ayaa waxa sidoo kale ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wararka ayaa sheegaya in kulankani diiradda lagu saaray xaaladda dalka gaar ahaan xayiraadii dhinaca hawada ee dhawaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay saartay Jubbaland sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daray in shirka lagu soo qaaday faragelinta ay dowladdu ku hayso dhismaha maamulka Galmudug oo dhawaan doorasho galaya Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo shalay gaaray magaalada Kismaayo ayaa sidoo kale Axmed Madoobe siiyay talooyin ku aadan sida loo xallin karo khilaafka maamulkiisa iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ka dhaxeeya dhinaca kale waxa maanta lagu wadaa inay magaalada Kismaayo gaaraan wufuud kala duwan oo ka tagaysa magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi kuwaas oo ka qayb galaya munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland xafladda caleemasaarka ayaa la filayaa inay dhacdo 9 bishan Oktoobar oo ku beegan maalinta Arbacada ah ee soo socota xisbiga himilo qaran ee hogaamiye madaxweynihii hore dowladda kumeel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta shaaciyay inuu dacwad ka dhan xukuumadda u gudbiyay maxkamadda sare ee dalka Senator Ilyas Cali Xasan oo kamid ah golaha aqalka sare sidoo kalena xogayaha warfaafinta ee xisbiga himilo qaran oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dacwadaasi la xiriirto xayiraadii dhawaan la saaray Sheekh Shariif Sheekh Axmed sidoo kale waxa uu tilmaamay inay doonayaan in lagu kala baxo cadaaladda si xal looga gaaro khilaafka ka dhashay kiiskaasi waxa kale oo ku eedeeyay dowladda dhexe inay si aan sharciga waafaqsaneyn ula dhaqantay Sheekh Shariif Sheekh Axmed 22 bishii hore ayay ahayd markii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sortaagtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya xilli uu ku sii jeeday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose uu uga qayb galay xafladda caleemasaarka ee Axmed Madoobe talaabadani ayaa waxa si isku mid ah u cambaarayay hoggaanka xisbiyada mucaaradka iyagoo dowladda dhexe ku eedeeyay inay jibinayso sharciga dalka u yaala hogaamiyaha maamulka Khaatimo Professor Cali Khaliif Galeed ayaa sheegay in magaalada Muqdisho aan u tagahayn arrimo siyaasadeed balse uu safray arrimo gaar ah isaga arrimahaasi oo kaga xidhan magaalada Muqdisho Cali Khaliif ayaa sidoo kale wuxuu rajo fiican oo ka duwan qoystii hore ka muujiyay dhaqangalka heshiiskii uu la galay xukuumadda Siiraanyo taasi oo uu sheegay in madaxweyne Biixi uu filayo inuu fuliyo Professor Cali Khaliif Galeed oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri wax siyaasad ku shaqo leh ma aha wax aan xamar u aadayo wax gaar ah oo shakhsi ah weeye waana soo laabanaya hadii la hayra muddo 10 cisho kadib waxaanu intaasi ku daray Muuse Biixi iyo Siiraanyo waxay ahaayeen xisbigii kulmiye Muusena wuxuu ahaa gudoomiyihii kulmiye heshiiskana waxaanu la galnay maamulka kulmiye warwar kama qabo in Muuse fulin waayo heshiiskii dhaxmaray Khaatimo iyo Somaliland Professor Cali Khaliif Galeed ayaa dhowr jeer oo hore sheegay in xukuumadda Somaliland ay hogaamiye Muuse Biixi Cabdi ay ka dhaga adeegayso fulinta heshiiska uu la galay madaxweynihii hore ee Somaliland ee Siiraanyo balse dhawaaqan maanta ayaa waxa uu muujinaya inay wax iska bedeleen aragtidii madaxweynaha Somaliland ee ku aadaned heshiiskan madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ku sugan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa dowladda federaalka iyo Jubbaland Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ugu horreyn sheegay inuu Kismaayo u tagay ka qaybgalka xafladda caleemasaarka ee madaxweyne Axmed Madoobe sidoo kalena waxa uu gardarro ku tilmaamay cunaqabataynta dhinaca hawada ee la saaray maamulka Jubbaland waxaanu aad uga xunnahay munaasabadda aanu ku nimi xilli shacabka reer Jubbaland ay saaran tahay cunaqabateyn gardarro ah shacabka reer Jubbaland teen ma qabato dhibaatada gaarka ah ee lagu hayo kamana qabato dowladooda ay iyagu soo dhisteen dadkii cunaqabateyntaasi inay jabiyaan hormuudka u ahaa ayaan ka mid ahay ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed ugu dambeyn waxa uu sheegay in loo baahan yahay isu tanaasul iyo in wax walba lagu dhameeyo wada hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyay si xoogeysanaysay khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo Jubbaland taasi oo ka dhashay doorashadii Axmed Madoobe dib loo doortay ciidamada dalka Djibouti
ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa xilligani ka cabanaya mushaar la'aan haysatay muddo. Ciidamadani ayaan qaadan wax mushaar muddo sanad ah sida uu qoray wargeyska Indian Ocean. Wargeyska oo soo xiganaya saraakiil ayaa sheegay in ciidamada kale ee AMISOM ay qaateen mushaharkooda balse kuwa Djibouti aan weli la siinin wax mushaar muddo hal sanadooda. Gari kasta oo kamid ah ciidamada Djibouti ee AMISOM ayaa mushaar u qaata $800 oo doolarka Mareykanka ah. Waxaana lagu soo waramayaa in Midowga Afrika mushaarka ciidamadaasi ku wareejiyay dowladda Djibouti balse aanay weli iyadu bixin. Habashada ciidamada oo muddo dheer soo jiitamaysay ayaan weli jirin wax jawaab oo ay ka bixisay dowladda Djibouti. Ciidamada Djibouti ee AMISOM oo dagaal kula jira Al-Shabaab ayaa ka howlgala deegaanada Hirshabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya. Daawadayaal intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa warkeeni. Tan iyo intaynu ku kulmi doono warkan xiga waxaanu idinkaga tagaynaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi